السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام وإذن سلام عليكم قالقة ميل بأدونك كجوجتين وأولاشين مريم سودو هذا يعني دليا هاي هل قد نقدعوا نسان ودعوا فاميلي إيو إسكاش فاميلي سودو هذا ولا له قالقة سيئتين في عنتهين waxaan rajeynayaa qof walba oo idinka mid ah inuu caafimaad qabo alxamdulilah anagana waa idin ladanahay waxaan hirgabka ahayn iidii wixii ka dambeeyay waxaa hirgab aan la daatay mafahanteen aniga labada yar oo aad noogu dhacay laakiin alxamdulilah allah ya mahad iska leh waxaa sheegna waa dambi qof walba ku dhacayna ilaahay caafimaad taama siiyo hadda waxaan diyaarsanayaa warqadii igu soo adeegi lahaay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إسكاش فاميلي دعم فاميلي سيتي من في عنتين دمانتين وحرجينا وذا في عنتين maanta waxa waaye waan soo baxay oo Maryam waxay soo dirtay adeeg saacad yar ah heesta markuu carraya adeeg gaar ah soo diray wixii waxa waaye meel igu soo qoray dhanka hadda doon raba waa soo jiireen raba marka saxaabta inta marka dugtaydan ka qabsanaya waxa waaye adeeg iyo guriga iyo tartiib loo bartaa may fahanti soo marka waxa waaye way fiican tahay markii maxal adeeg lagu diro maalin basi waa mogta maalin waxay noqon kartaa inaa maxal dhahay maalin waxa dhici kartaa inaad soo adeegtid inaa cuntadii gurigii wixii aad lagu wareejiyo adeeg soo adeeg kar in lagu dhahaa dhici karto marka saas oo barbarna may fahanteen asxaabta tutana hadra shangi haba walasan marka baashada soo koray marka saa camal marka waxa waaye way fiican tahay marka maxal dhahay ninkii xaaskiisa inay maxal dhahay isu caawiyaan gurigii reerkii inay isu caawiyaan waxa waaye faa'iido badan ku jiro marka adigina waxa baranaysaa adeegii inta karantii tartiib bir wax baa dhici karo waxaan uusan kartaa inay wax baahan kara adiga waxa ina kala tuurtido hooshii adeegii wixii isku dowrdid ayaa la rabaa marka faa'iidaas oo ku jirto marka waxa waaye khayrka iyo wanaaga isku kaashano inta China Pinjab waraaqada wata muujada xawee marka haddaan si aqrisana tartiib wala kala tuura adeeg sida aragteenba Abu Maxamed adeeg u dirsanayo warqadaas qoray hadii kale waxa hadhow soo kala ilooba يعني wax badan hada u diro wixii waa kasoo kala dhudhumayeen si ay dhudhumin ba anna warqada ugu qoray inta ugu badan waxa kasoo adeeganaa markiitiga laakiin hada xaafadaha kasoo adeeganay sababtoo ah kastoo magaaladina buuq yara ka jiro banaan baxay iyo waxba ka jiro ilaahay aan ugu amaansado intii muslimna Allah ku amaansado marka waxa xaafadaha loo iig soo qabanayo warqadii u dhiibay adeegii oo dhan hada uu ii keenay adeegii aan kala baxsaday wixii aan fridge ku xareyn karo waa xareey hadda jikadii aan soo gaday waxa waaye qada karis ayaan galayaa ma fahanteen malaayga aan diyaarsanayaa asaga ka bilaaway soo marka malaayga wixii oo dhan aan mariyay caraftiisa bacdaas aan ku xirtay geesa u dhigtay qaybtaas kalena waxa waaye fridge kan galiyay asagana waa diyaarsaday oo wixii dhan waa marsaday xawaajiyaashiisa soo marka maanta waxa rabaa inaan kariyo soora inaan kariyo rabaa soo marka hadda dabka waxa soo saartay soorta ayaa dabka soo saartay marka walaalaha qaaliga aad iyo aad baad u wanaagsantihiin commentiyadiina quruxda badan isugu jira dhiirigelinta iyo ducada aad baa idinkaga mahadcelinaynaa waxaan kaloo idinka codsanayaa abaayadaanayta inaad usoo booqatiin channelkeeda soo booqatiin subscribe u saartiin waxa waaye adduunkan unbaa walaalo lagu yahay soo marka adduunkan unbaa walaalo lagu yahay adduunka haddaan la isku caawinin aakhira cid wax isku falaysa malahan oo caawinaad iskaaga baahan marka walaaliga qaaliga waxaa idinka codsanayaa abaayada inaad channelkeeda soo booqatiin aan u tagtiin oo dhahdeen from dacwa ama iskaashi labadaba u qortiin am from Maryama hadba tii idin fudud ku dhahdeen soo marka taas ayaa idinka codsanaa walaalaha qaaliga marka ilaahay waxaan ka baryayaa qof walba idin kamid ah inuu muraadkiisa u sahlo qof walba muslim ahna meesha ku ooman yahay inuu ilaahay ka waraabiyo walaalaheena muslimiinta ee reer Falastiin ilaahay cadowga ka qabto halka aan ku noolnahay oo buuqa iyo rabshada ay ka taagan tahayna ilaahay dhaxdooda maslaxad ha dhigo ilaahay ha kala qaboojiyo waxa waaye amniga iyo nabadda wax ka fiican oo ka macaan malahan waxa waaye anaga dagaal iyo qaxleena lagu soo dhalay waxa waaye wadan walba waxa qiimaha uu ku leeyahay waa intuu nabadda haysto hadii nabadda la waayana qiimihiisa uu dhumayaa marka ilaahay baladkan balad aamin ah nooga dhigo rabbi jacel hada albalada aamina maadaama aan ku noolnahay aan ku soo barbaarnay aan ku ilmo dhalnay ilmaheenana ay ku sii barbaarayaan haddana waxay ku baranayaan waa laga maarmaan marka inaan u duceyno ilaahay balad amni ah nooga yeelo
in qof walba muslimaana meesha ku nool yahay ilaahay amni ha ku siiyo intaas hadii aan gudbo hadda waxaan karinayaa suugadii aan karsanayaa soorti waa soo kariyey horta idin sheegay ani min zamaan soor kariyo ma kaseenin waxaas ma kasay cilmiga kamid tahay ma fahanteen soo marka soor waxaan bartay digsiyadan oo non stick marka soo gatay kadib la soor bartay sababtoo ah ayaga waxay kugu saacideynayaan sheegi dabka ku hayn kartaa yani si fiican soortan waxay u baahan tahay inaad dab ku haysid oo si fiican u walaaqdid ilaa isku imaato anigana waxaan sameyn jiray biyo karkaraya inaan soorta ku shubo maxaa la walaaqitaanka xataa boobsiin jirin yani u taagsan jir markaas iyada dhan waxay noqonay kuskuus ay noqon jirtay digsigana waa ii dhigay laakiin hadartan maasha Allah yani soorta kari hooyada waxay dhijitay soorta ceerinka maxaa waaye aqay soorta fiican iska kari haddana soorta kari waxay dhayaa soorta yaa kari su'aal isi weydiinay faanteen yani maasha Allah ku soo baxay marka waxa waaye ool ma kaseen hadda bartay ciladan ani ma ahayn digsigu ahay faanteen marka maanta soortii ka shidan tahay soortii waa soo kariyay cagaar ah dabka soo saartay cagaarka intuu ii soo huuray oo ii sii karaay asna wax yar dabka u yar gaabiyay hadda inta waxaan ku diyaarsanayaa cabitaankii diyaarinaya afakaadho iyo caanaas isku shida afakaadho iyo caanaas la isku shida wali isku cabtay wax ka macaan badan malaha ku dhahay maasha Allah ani ilmahayga afakaadhada kaligeeda ma cunaan cabitaan hada ka agadhiga kaligeedana ma cabayaan laakiin shay kale hada ugu lab qaso way cabayaan sida cambaha ama caanaaska marka ugu qaso way cabayaan oo kula shiido soo maanta waxaan dhahay caanaas ugu shiida cambihi iyo caanaaskii aad ugu sii macaan tahay yani xataa ma dareemayaan inay afkaadho tahay waayo afkaadhada ku yaray hal xabo yar ku daray caanaaska ku badiyay ilmaha sidoodaba shay markii ay nacib yihiin shaygaas kaligiisa ay cuni karin ama ay cabi karin shay kale ay jecel yihiin loogu dhex qariyaa si ay kaaga qaataan waayo mukulaal qorqood biyo ku cabtay ilmaha badankoodana wayba nacib yihiin waxyaabaha fiican oo isleedahay ilmaha u fiican yihiin ha cunaan ama ka qaataan wayba diidayaanba inaa u qarisid waayo marka faanteen soo marka ani waa u qariyaa hadda cagaarkii u soo laabtay cagaarkii asaga dhan uu isku huuray soo dabka kasto hadda waa u dheereeyay sababtoo ah marabi inuu maxal dhahay uu biyo dhalo waxaa rabaa inuu qaleel ii noqdo rabaa wax yar dabka u soo dheereeyay haddana waxa uu soo jeestay cabitaankii u soo laabtay yani waa miiraya ma fahanteen waa miiraya waxaan kale ku darayaa biyo ayaa ku darayaa kadib waxaa dhigaa 2 karaafo ilaa galabtii iska cabayaan waa ilmeyga cabitaanka aad u jecel yihiin hooyo walbana waxay jeceshahay ama ay ku dadaashaa ilmaheeda waxay ka cunayaan ama ay ka cabayaan inay u sameyso ilaahay awlaadahan oo dhaafo intaan haysaninna uwad baari oo saalixiin ilaahay siiyo anagana kuwa baariyaale Allah nooga dhigo hadda cabitaankii waxaan ku kala shubayaa garaafadaha ku kala shubayaa halna banaanka dhigayaa halna fridge-ka gelinaya waayo aniga wax qaboob ma cabi sababtoo ah qoomanka dartooda hadda hadii aan wax qaboob cabo isla markii qoomanka waa isoo kacayaan qaboobka ay dhibaayo faanteen waayo waxyaabaha qaboobka dhan waa aga go'ay qoomanka dartooda ice cream wax walbo yani qaboob sheegta waa ka go'ay laakiin maalinta ice cream imaato oo la wada cunayo waa ku tuurtaa sababtoo ah mabka ahaan karin meel korkaaga lagu baashaalayo jalaata lagu cunayo ma aamus kartaa ilaahay baari waa ilaahay caafimaad keeno waa iska cunaa ma fahanteen laakiin qaboobkii asalka ahay waa aga go'ay fridge bi qaboobka soo bixi cab wax qaayeen maxal ay fruit qaboob soo baxsa cun waa iska dhaafay waayo maanta daa cuno isla bir qoomanka waa xiran yihiin baqandha ay hays qoomanka ay u kacsan marka ilaahay caafimaad hana siiyo inta qoomanka laga hayna ilaahay caafimaad ha siiyo soo marka hal garaafa banaanka iska dhigaa kuleelkooda ku caba halna fridge-ka galiya soo marka hadeertaan cagaarkii waa soo kariyay cagaarka sidaa rabo ii noqdo qaleel uu noqday dabkana waa u damiyay haddana waxaa soo qaatay fraayaha soo qaatay malayga rabaa inaa ku dubo saliid ma ku duwaayo fraayahana ku duwaa sababtoo ah saliidda marka aan ku duwaayo waxaa ku nacay malayga guriga dhan oo kasoo shiiraa horta alafu haddana tixsi badana imaanaya tixsi ab iyo isirse u dhan yihiin ku dhahay waa isku yaryeeraya ma fahanti guriga dhan tixsiga kaaga shimugsamaayo marka kan hadda marka tixsigina wuu iga yaraana urkina wuu iga yaraana saliida qiiceeda iyo fajaqfajaqeedana ma is arkeen maaho marka hadeertaaneetii waxa waaye waa u shidaaya asaga kor looka oo ka karinaya marka ugu horeyso marka lambarka u geynaya kadibna ilaa 30 daqiiqo gelina waa ani waxa jeclaa inuu si fiican igu karo oo zaid igu qalala jeclahay waa gelinaya kadib haddana markii uu daqiiqadahaas dhameysto soo bixina haddana dhinaci kale u gadina sababtoo ah kor loo ka karina asaga maaho
hoos haddana inaa adi uga gediso waa inkastoo saan hadda uun waxawaaye ceeriin ma ahan biseel waaye laakiin kor haddana hoostaas haddana inaa qalajiyo oo qoyaan yaruu leeyahay inaa qalajiyo waa waxyar kadib haddana waa ka bixinaya ma fahanteen soo marka insha Allah walaalaha qaaliga waxaa rajeynayaa inaa muuqaalkaa ka hesheen aad iyo aadaan ugu mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan aada u mahadsantihiin kommentiyadiina quruxda badan isugu jira dhiirigelinta iyo ducada qadadeena waa soo diyaarsanay ilmihii waa soo siiyey alxamdulilah tarna aniga iska leh baandeen suroo marqataa la dhahay waa kaas saxankeyga waa soo diyaarsada afkaadhadeeda keeska soo saartay insha Allah walaalaha qaaliga intaynu muuqaalkiisa xiga dib ugu kulmi doono waxaa idin leeyahay iskaashato ma kufto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu